السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة kusoo dhawaada muuqaalkii u horeeyay ee kanaalkeena. Muuqaalkan oo aynu ku eegi doono wadanka Ciraaq. Wadanka Ciraaq oo ah wadan la aasay dhammaan xadaaradihiisa oo dhan. Ma ogtahay wadanka Ciraaq oo loo yaqaan casriyadii kalaasiikiyada ee hore, wadanka labada webi oo loo jeedo Dijla iyo Furaat, in uu hoyo gundhigu yahay xadaaradihii u horeeyay ee bini'aadanka, taasoo lagu qiyaaso in ka badan 10,000 sanadood. Dadka degan wadankani intooda badan waa Carab laga soo bilaabo waqtiyadii boqortooyadii Saasaaniyada. Ciraaq waxa ay soo martay xukunno iyo boqortooyooyin ay ka mid ahaayeen boqortooyooyinkii Asomoriya, Akkadiya, Baabiliya, boqortooyadii Ashuuriya iyo sidoo kale boqortooyadii Saasaaniyada. wadankan waxa ay muslimiintu furteen xilligii khulafaa raashidiinta qarnigii 7 ee hijriyada, taasoo saldhig u noqotay khilaafadii imaamkii Cali bin Abi Talib iyo sidoo kale dawladda Cabbaasiyiinta. kadib weerarro iyo dagaallo isxigxigay waxay Ciraaq gacanta u gashay sanadkii 1258 ciidamadii Mogoolka ama Tataarka oo u bedelay wadanka oo dhan qubuur. kadib markii uu Sayfuddin Qudus jabiyay Tataarkii, waxa xukunka Ciraaq la wareegay dawladdii Cusmaaniyiinta qarnigii 16aad ee miilaadiga. dawladdaas oo xukunkeedu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka. kadib dhicitaankii dawladdii Cusmaaniyiinta waxaa talada Ciraaq la wareegay gumaystihii Ingiriiska. gumaysigaas oo socday muddadii u dhaxaysay 1922 ilaa 1932. waxa uu wadanka Ciraaq xornimadiisa dib u qaatay 1932 bishii Oktoobar. xilligaas oo xukunka wadanka Ciraaq uu isku bedelay nidaamka cusub ee jamhuuriga, isagoo markii hore isticmaali jiray nidaamka boqortooyada. waxa wadanka soo xukumay madaxweynayaal kala duwan oo u dambeeyay halyeygii iyo mujaahidkii Ilaahay ha u naxariistay Saddam Hussein oo xukunka haystay muddadii u dhaxaysay 1979 ilaa 2003. muddadaas oo ahayd muddadii ay Ciraaq uga awoodda badnayd. muddadaas oo ay dhaceen dagaallo ay ka mid ahaayeen dagaalkii Iiraan, dagaalkii Kuwait, dagaalkii labaad ee Khaliijka Carabta iyo dagaalkii lagu riday madaxweyne Saddam Hussein. dagaalkaas oo horkacay Mareykanka sanadkii 2003. taariikhdaas kadib waxa uu galay wadanku xaalad burbur iyo jahwareer siyaasadeed ah oo ay weheliyeen dagaallo sokeeye. sanadkii 2011 waxa wadanka iskaga baxay ciidamadii shisheeyaha ee Mareykanka. intaa kadib waxa uu noqday wadanka Ciraaq wadan aan war laga hayn marka la soo hadal qaadana lagu xasuusto burbur, gaajo iyo faqri iyo macaluul aad u daran. waxaanu u soo qaadanaa wadankan inaad wax ka ogaatid taariikhda wadamada Islaamka ugu awoodda weynaa ee ay baabiyeen Shiicada iyo reer galbeedku. haddana waxaanu soo qaadan doonaa xaqiiqooyin cilmiyeysan oo ku saabsan wadanka Ciraaq. Ciraaq waxay kaga jirtaa marka la eego dhanka kaydka shidaalka caalamka kaalinta shanaad, kayd lagu qiyaaso 141 bilyan oo foosto oo shidaal ah. madaaristii u horeysay ee qawaacidka luqadda afka Carabiga waxaa laga aasaasay Ciraaq oo ku kala yaalay magaalooyinka Kuufa iyo Basra. wadankani waxa uu leeyahay mid ka mid ah xadaaradihii iyo ilbaxnimooyinkii ugu horeeyay ee adduunka. cisbitaalkii ugu horeeyay ee taariikhda bini'aadanka la dhisay waxa laga hirgeliyay magaalada Baghdad ee wadanka Ciraaq, kaas oo aasaasay caalimkii muslimka ah ee Abu Bakr al-Razi qarnigii 8aad ee miilaadiga. wadankii u horeeyay ee baska labada dabaq ah u isticmaalay gaadiid dadweynuhu leeyihiin waxa uu isna ahaa wadanka Ciraaq. wadanka Ciraaq waxa ku yaalay maktabadii ugu weyneed xilligaasi, maktabadaas oo la oran jiray Baytul Xikma. waxaana yaalay maktabadan 300,000 oo kitaab, taasoo noqotay jaamacadii u horeysay sooyaalka dunida. taayirkii u horeeyay waxa lagu sameeyay wadanka Ciraaq, kaasoo ay sameeyeen farsamayaqaanadii Soomoriyiintu. qofkii u horeeyay ee isticmaala kamarada waxa uu ahaa caalimkii reer Ciraaq ee la oran jiray Ibn al-Haytham, kaasoo ahaa caalim muslim ah, taas oo u adeegsan jiray cilmi baadhistiisa dhanka aragga iyo iftiinka.